bismillaahi araxmaani iraxiim. kusoo dhowaada jaalka maalmaha. waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso aad u xiiso badan. qisadan ayaa waxay ku saabsan tahay samafalka faa'iidada uu leeyahay. nin ayaa wuxuu ka soo baxay gurigiisa, isaga oo waddada socda ayuu wuxuu arkay neef lo ah oo naasihiisa caano fara badan ka buuxaan. wuxuu xasuustay nin deriskiisa ah oo xaaladiisu lidato, islamarkaana ay u joogaan 7 gabdhood. markaasuu wuxuu ku dhaartay inuu neefkan u iibiy ninkan deriskiisa ah. neefkii ayuu soo iibiyey, wuxuuna u keenay ninkii deriskiisa ahaa. ninkii neefkii markii uu arkay farxad ayuu la dhiban gaaray, waxayna bilaabeen isaga iyo gabdhihiisaba inay ninka u mahad celinayaan, islamarkaana ay u duceynayaan. dhowr bilood kadib waxaa dhacday abaar aad u daran, waxaana ku dhacday biyo la-aan. odaygii iyo wiilashiisii waxay raadiyeen biyo, ayaga oo meel socday ayay waxay arkeen god laga heli jiray biyo. odaygii ayaa wuxuu ku yidhi carruurtiisa, godkan ayaan gelayaa, waxaana ka soo fiirinayaan biyo. odaygii godkii ayuu galay. muddo 3 maalmood kadib odaygii waa la waayey. wiilashii markii ay odaygii ka quusteen ayay waxay go'aansadeen inay isaga soo laabtaan, waxayna ku qiyaaseen inuu dhintay ama uu bahal cunay. wiilashii gurigooda ayay ku soo laabteen. markii ay guriga yimaadeen ayay waxay yidhaahdeen, maadaama uu aabbahan dhintay waa inaan kala qaybsanaa dhaxalkiisa, nin walibana waa inuu xaqiisa qaataa. markii ay xoolihii isku keeneen ayaa mid ka mida wiilashii wuxuu ku yidhi, waxaan rabnaa neefkii uu aabbahan siinay ninka deriskeena ah, waa inaan ka soo qaadnaa, maxaa yeele neefkaasi aad ayuu u fiican yahay, waa inaan uga beddelnaa neef caata ah. wiilashii waxay u tageen odaygii deriskooda ahaa, waxayna ku yidhaahdeen, waxaan doonaynaa inaad na siiso neefkii aabbahan kuu siinayay, waxaana ku siinaynaa neef kale aan kugu beddelaynaa. wuxuu yidhi ninkii, aabbihin ayaa isiiyey neefkan, ee maxaad iga rabtaan? waxay ku yidhaahdeen, haddii aad diiddo waan kaa qaadanaynaa, waxbana ku siin mayno. odaygii ayaa ku yidhi, aabbihin ayaan ku dacweynayaa. waxay yidhaahdeen, qofkaa doonta u dacwo, aabbahin waa uu dhintay. wuxuu yidhi, siduu ku dhintay ii sheega. qisadii ayay uga sheekeeyeen. kadib odaygii wuxuu yidhi, neefkiina qaata, idinka dooni maayo, ee waxaad i toosisaan meesha uu aabbihin galay. godkii ayay keeneen, kadibna waa ay ka soo laabteen. odaygii wuxuu galay godkii, wuxuuna isku xiray xarig. dab ayuu shitay, wuxuuna bilaabay inuu odaygii raadinayo. isaga oo dhex socda godkii ayuu wuxuu maqlay cod daciif ah oo meel fog ka imaanaya. markaasuu wuxuu aaday dhankii ay qaylada ka yaraysay. meeshii ayuu tegey, wuxuuna arkay odaygii oo meel yaallo oo nafta ku daba yar tahay. waa uu soo qaaday, wuxuuna u soo saaray bannaanka, wuxuuna siiyey caano iyo biyo. gurigiisa ayuu keenay, ayadoo ay wiilashiisii aysan ogeyn. wuxuuna waraystay sida meeshan uu ugu noolaa muddo 1 isbuuc isagoo waxba cunin. wuxuu yidhi, markii aan soo galay godkan ayaan waxaan helay biyo, balse waddadii ayaa iga luntay. wuxuu yidhi, waxaan iska fadhiistay meel. markii aan 3 maalmood sii marayo ayaan gaajo la joogi waayey, meel ayaan iska jiiftay, waxaana arrinteeda u tala saartay alla subxaanahu wa tacaala. anigoo iska jiifa ayaan waxaan arkay caano iga imanaya godka korkiisa, mana garanayn ruuxa i siinayo. 3 waqti ayaan helay caanaha maalin weliba. maalmihii ugu dambeeyey waxaan waayey caanihii aan cabi jiray, mana garanayo sababta keentay inaan waayey caanihii. wuxuu yidhi odaygii, waxaan kuu sheegayaa sababta aad ku weysa caanaha waxay tahay, waxaa ii yimid wiilashaada, waxayna iga qaateen neefkii aad i siinaysay. taas ayaana kuu sababtay inaad caanihii weyso. arrintan ayaan waxaan ka faa'iidaynaa inay aad u wanaagsan tahay inaad mar weliba dadka u samafasho, maxaa yeelay alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay, samafalka abaalmarkiisa waa samafal. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka cusub tahay jaalka maalmaha, fadlan sabskaraab dheh gamaylka reex si ay kuu soo garaan waxyaaba cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.